halkani waa barahan ku leenahay social media sida barteena YouTube-ka ee Dobiyo Media iyo M-Dobiyo kuna soo baahino dhacdooyinka dalkaada hooyo hadii ay siyaasadda, sportska, dhaqaalaha, tiknoolajiyada intaba waxaa ku kulmay M-Dobiyo iyo Dobiyo Media barahan ku leenahay social media. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيارتنا داونيسا guud ahaan caalam kameel walba ka joogtaan iyo goor walba iyo xil walba idin tahay waxaan wanaagsan ayaan kula hayanaga Mustafa Maxamed kala soo hadlo Dobiyo Media barteena YouTube-ka iyo sidoo kale barta kale Facebook-ka ay M-Dobiyo kuna soo baahiyo dalkaada hooyo waxyaabaha ka jiro aan isleenahay bulshada waxay xiisa gelinayaan warbixino iyo dhowr qodob ayaa idin wadaan waxaana kamid ah booliska Soomaaliyeed oo soo bandhigay rag gacan ku dhiiglayaal ah oo dhibaato maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ka sameeyay howlgalle ay sameeyeen ee ku soo qabteen maantana ku soo bandhigeen warbixin aanu ka diyaarinay qayb ayay ka naqon doontaa sidoo kalena waxaa idin haynaa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safarkii Djibouti oo labada cisho uu ku sugnay warbixin la xiriirtana qayb ayay ka naqon doontaa suxufiyiin ka tirsan warbaahinta Arlayda ayaa maanta magaalada Muqdisho tacadi loogu geystay isla markaasina booliska Soomaaliyeed ciidanka rag ka tirsan u geysteen warbixin la xiriirto ayaa idin haynaa sidoo kalena waxaa qayb ka naqon doona madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo guddi u saaray qasaarihii ka dhashay madaxiis ka dhacay magaalada Jowhar isla markaasina maanta magacaabay guddigaasi qayb ayay ka naqon doontaa qodobadaasi iyo arrimaha kale ee Soomaalida waxyaabo qoseeyo ayaa idin sii tabinaynaa insha Allah hadduu eebaha awood leh noo ogolaado balse adigana daawanayay taa booqashada kuwadana soo booqatay channelkeena Dobiyo Media subscribe noo saarin fadlan calaamad guud subscribe ka taabo gambeelka furasi ama amiin joogto oo sidoo kale barta Facebook-ga haddii aad follow soo dhigin fadlan follow soo dhig video-ga like noo saar aragtidaadana comment-iga noogu soo gudbi mahadsanid intaasi haddii aan ka soo tagnano aan ku bilaawno howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ku sameynayeen magaalada Muqdisho lagu sugayeen ammaanka ayaa maanta waxay soo bandhigeen rag iyo waliba hub ay sheegeen inay ahaayeen kuwa dhibaato ka waday magaalada Muqdisho laguna soo qabtay howlgalka ay sameynayeen ciidamada booliska Soomaaliyeed ee loogu magac daray Samakaab waxaana ay taasi ay ku tilmaameen mid ka dambeysay cabashada iyo dhibaatooyinka xoogan ee kula kacayeen shakhsiyaadka ammaanka lidka kuwa ka sameynaya magaalada Muqdisho isla markaasina shacabka fariimihii ka imaaday booliisku ka jawaabayay yireen in ay sameynayeen maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ay ku raad joogaan ama ku soo qabanayaan shakhsiyaadkaasi waxayna sheegeen inay sii socon doonaan tan iyo markii inta laga cadibtirayo waxaana maanta afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xubno kale ka tirsan saraakiisha booliska Soomaaliyeed ayaa waxay soo bandhigeen shakhsiyaad ay sheegeen inay ahaayeen kuwa dhibaato ka waday magaalada Muqdisho waxayna sheegeen in ay ku jiraan shakhsiyaad dil geystay iyo sidoo kalena kuwa kale oo dhac geystay lagu raad joogay iyo kuwa ka tirsanaa cayaal weerarada afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax ayaa wuxuu ka warbixinayaa howlgalkii dadkii lagu soo qabtay isla markaasina maanta ay soo bandhigayeen waxyaabihii laga soo qabteen raba bulshada Soomaaliyeed inaan u caddeeyo gacan ku dhiiglayaal ku eedaysnaa kiiskii Macalin Nuur Jimcaale oo eedaysana ka mid ah oo lagu raad joogay oo asagana gacanta lagu soo dhigay eedaysanahaas oo qiray weliba in kuwii hore xirnaa iyo asagaba ay ka mid yihiin dadkii dilka geystay ay afkooda ka caddeeyeen sidoo kale degmada Kaaraan saldhigga booliiska operationka Samakaab waxaa lagu soo qabtay gacan ku dhiiglihii dilay askarigii xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu digay degmadaas Kaaraan oo hadda gacanta lagu haayo asagana sidoo kale degmada Kaaraan waxaa lagu soo qabtay mid ka mid ah ciyaal weerarada oo dhaawacay mid kale oo ciyaal weerar ahaa oo dhaawaciisa uu yaalo saldhigga Keysanay oo asagana gacanta lagu soo dhigay kadib markii gacan ku dhiig dhibanaha oo isbitaalka jooga tilmaamo laga helay iyo raad raaci ciidanka booliska Soomaaliyeed dhibanahana dhaawaciisa wuxuu yaalaa isbitaalka Keysanay dhaawac geystihiina gacanta lagu hayaa degmada Kaaraan way dhacdadaas sidoo kale eedaysanayaal ku eedaysan kufsi ay u geysteen gabar Soomaaliyeed degmada Kaaraan ayaa asna laga soo qabtay isla maanta waxa loo gudbiyay hoggaanka baarista dambiyada CID ayuu ku xiran yahay kiisaska kufsiga waxyaabaha waxay ka mid yihiin xasaasiga la rabo in isla markii maxkamadda la waafajiyo wuxuu saldhigga Kaaraan operationka intii lagu jiray soo qabtay 4 burcad ah oo moobeelo dhacaysay ayagoo ku gudi jira isla faragaransii gacanta lagu soo dhigay waxaan rabnaa saldhigga Hiliwaana waxaa lagu soo qabtay 4 burcad ah horay dhac ugu geystay degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid dhammaan cadaymihii
iyo marqaatigii markii la helay raadkii booliisku uu raacayay waxaa la soo qabtay 4 burcad ahayd ee ku xudubaysneed 2 bistoolad ayagii labadooda bistoolad waxaa lagu hayaa degmada Hiilawaa sidoo kale Boolsal Huludaag asagana wuxuu soo qabtay 3 qof oo ku eedeysan iibinta daraagiska iyo daraagiskoodii waxaan rabaa operationka inaan ugu faa'iideysto waxaa jiray mootooyin badan oo aan ku raad joognay oo saldhigga yaaqshid yaala oo baafin ku jiray oo dhac geystay dil geystay horeyna u fakaday ilaa 10 mooto waaye oo sawiradooda sida waraaqahaas ay kaga muuqdaan waxay yaalaan saldhigga yaaqshid waxaan bulshada Soomaaliyeed rabaa inaan 3 fariimood u dirno maanta waxyaabihii inta howlgalka ku jirnay aan kula kulannay waxa ka mid ah fariinta koowaad oo ah hooyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ee dhashay dhalinyarada ciyaal weeraha kama imaan cirka waxa dhalay hooyo sidoo kale intii aan operation ku jirnay waxa aragnay guryo ay u kireysan yihiin dhalinyaro 9 u degan 10 iyo 4 u degan oo u kireysan hooyooyinkoodana magaalada dhinac ka degan dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii muddo 2 cisho ah oo dalka Jabuuti aan walaalaha nahay booqasho rasmi ah casuumaad oo ka helay dhigiisa dalkaasi Jabuuti oo ku sugnaa ayaana waxa maanta garoonka diyaaradaha dalkaasi Jabuuti ku soo sugootiyay dhigiisa Ismaaciil Cumar Geelle iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda Jabuuti aan walaalaha nahay iyo sidoo kalena mas'uuliyiin kale socdaalka madaxweynaha oo Jabuuti ku joogay ayaa hore waxa loogu sheegay inuu ahaa mid lagu soo wanaajinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya la leedahay dalalka gobolka isla markaasina ee Jabuuti ay ka mid tahay intuu ku sugnaa Jabuuti madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Jabuuti iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Jabuuti aan walaalaha nahay Ismaaciil Cumar Geelle ayadoo sidoo kalena halkaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku siiyeen Jabuuti abaalmarinta ugu qaalisan ee dawladda Jabuuti bixisay iyo sidoo kalena baarlamaanka ka hor qodbeeyay balse galbintii maanta laga soo galbiyay garoonka diyaaradaha dalkaasi Jabuuti caasimadda Jabuuti ayaa markuu ka soo ambaxay si nabada wuxuu ku soo gaaray asigii wafdigii la socday magaalada Muqdisho isla markaasina garoonka diyaaradaha aadan cabde ee aadan ka soo degay diyaaradiisii day socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku bixiyay dalalka dhowrka ah ayaa waxa madaxtooyada Villa Soomaaliya qoraal ka soo baxay lagu sheegay inuu yahay mid lagu xaqiijinayo xiriirka diblomaasiyadeed oo wanaagsan isla markaasina gallogiisa ololihiisa doorasho ahayd Soomaaliya heshiis dunida heshiis la ah ugu dambeyntiina ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ee degmada Wadajir ayaa maanta fal dacadi ah kula kacay suxufiyiin Soomaaliyeed ee ka tirsan kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan raadiyaha iyo telefishinka Arlayda ay isla markaasina wariyaal ka duubayay deegaanka ama degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Ceelqalow biyo fariisin halkaasi ku yaalay ayaa waxa halkaasi la arkayay muuqaal laga qabtay wariye ka tirsanaa warbaahintaasi oo askari ku labisan dareeska ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska oo ku garaacayo qoriga caaradii isla markaasina oo wariyahana dhahayay maxaa iga rabtaa bal aan yara daawana muuqaalkani walaalow adoo raadiga qoriga ma taaban inay ka iga leexo iska magaalada Muqdisho Arlayda TV ee raadiyaha ee afka mayga ku baxo ayaa agaasimaheeda xafiiska Muqdisho waxa uu ka warbixiyay sida tacadiga ah ee wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan maanta labadii wariye ee ka howlgalayay warbaahintooda ee maanta lagu la kacay waxa kan asigoo ka waramayo bismillaahir rahmaanir rahiim saaki abaarihi 10 subaxnimo ama 4 saac howl maalmeedkeena caadiga anaga ku jirno wariyahayna Maxamed Nuur Faransa iyo cameraman Munasir Abdulrahmaan ayaa shaqo u aaday aaga Bulxubey degmada Wadajir waliba gaar ahaan Ceelqalow masaajidka Culusow meeshaas oo biyo badan ay fadhiyaan si ay warbixin ugu soo sameeyaan iyagoo howshooda ku jiro ayaa waxa dhacday in ciidamo ku labisan dareeska booliska ah ay weerar ku soo qaadeen isla markaana xabada ay ku fureen taasoo argagax gelisay kadibna sida klibka ka muuqato wariye oo qaylinayo oo aadaarayo oo dheh maxaa ii dilaysaa
oo wuxuu ku bilaabay liifka qoriga iyo baadkii isagoo saasoo kale beenaadda ama maxaa la dhahaa tooreyda qoriga leh la aaday kadibna wejiga kala aaday si uu ugu waxyeeleeyo kadibna gacanta isaga dhigay maadaama wejigii ay ku socotay maxamed nuur faransa dhaabacaas gaaray wariyaha manasar oo asagana kamermaan ahaa ayaa asagana baadkay sidaasoo kale lala dhacay isla markaana ciidamadii ku labisnaa dariiska booliska ay manasar garaaceen taasoo keentay in mikrofonkii iyo kaameradii iyo booyihii meesha ku dhacaan iyo mamariyaashii qalabkii dhan oo meesha ku burburay sidaas la mid waxay kadibna u wadeen dhanka iyo xabsiga degmada Wadajir oo ilaa hadda ay halkaas ku sugan yihiin madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa waxa uu magacaabay guddi oo guddoon looga dhigay madaxweyne ku-xigeenka isla markaasina loogu talagalay in ay sameeyaan guddigaasi qiimeyn ku aadan arrimaha la xiriira maalintii shalay ahayd waxyeeladii ka dhacay ee magaalada Jowhar ee khasaaraha baahsan ee dadkii ay soo gaartay soo tirakoobaan waxaana guddigaasi ka mid ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi waxaana guddoon looga dhigay madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle Axmed Yuusuf Xagar Dabageed iyo sidoo kale xubno ka tirsan labada gole ee sida golaha deegaanka ee xildhibaanada maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale golaha wasiirada waxaana maalintii shalay ahayd qarax ka dhacay magaalada Jowhar oo khasaare xooggan gaarsiiyay isla markaasina hoteelo iyo sidoo kale guriyada shacab ay leeyihiin hanti fara badan oo ku burburtay iyadoo sidoo kale dhaawacyo ay soo gaartay mas'uuliyiinta shacab ee jirto dhimasho ciidan iyo waliba shacab ah waxaana oo maanta ama caawa uu magacaabay guddi arrimahaasi u kurgala si ay u soo qiimeeyaan isla markaasina gurmad loogu sameeyo dadka dhibaatada ay ka soo gaartay waxyeeladaasi waa tahay daawadaheena sharaflo intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa qodobadeeni dhowrka ahayd ee Doobiya Media MDB anigoo Musa Maxamed Cali kaaga soo jeedina tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaa idinka tagayaa sidaasi iyo nabadiino iyo kulan kale oo xiiso leh